xasan cabdi bile xasan kanaaco waa fanaan ku xamaasha xirfadda fanka. waxa uu ku nool yahay magaalada doolow ee gobolka liibaan. xasan waxa uu jecel yahay fanka, sidoo uu sheegana waxa uu ku jiraa muddo dheer, laakiin duruufo ku xeeran awgood uma aysan suuro gelin inuu heer ka gaaro. haddana waxa uu leeyahay rajo ah inuu fankiisa sii xoojiyo kuna xamaasho. inaan fangnimada galo oon macnaha fangnimada inaan ku guuleysto oo fanaan caadi noqdo, meel inaan helo bersiyaalka adduunka macnaha aroosaska madaxyaasha inaan u heeso ayaa macnaha fanaannimada xiisaan u galay. haddana abbaar waa ku dhex jiraayo wax oo iga caawiyay fangnimadii iyo wax oo meel jag ii yeelan waa waaye. weli sidee macnaha fanaan dilac bilaash iskaaga ahay. ha yeeshee xasan kanaaco oo magacyo badan looga yaqaano doolow waxa uu wataa kataar yar oo gacantiisa ku farsamaysay, kaasi oo ka samaysan maqaarka loda iyo siligyo yaryar oo loo farsameeyey, waana kan ka caawiya inuu xirfadiisa ku xamaasho. geedayaal mareer la isku xirxiri waaye isilig waaba kabanaan ka dhigtay gacan ku samaysto waa shareero anaa gacanteeda ku samaystay. waxaas ka kooban yahay geedo iyo maqaar iyo silig waaye. kan waa maqaar lo, kanna waa siliga mootada bareegi waaye, kuwaana waa mareer saddexdaan qori waa mareer, kanna waa xiiro, tan xiiridii soorta lagu cunaaye marka gacan ku samays. muusig caadi aan ka dhigtay ani. fanaankani baraha bulshada loogu yaqaano fanaanka wareega waxa uu leeyahay 2 xaas iyo 4 caruur ah. waxa uuna biilkooda ka soo saaraa xirfadan uu ku xamaasho asiga oo taga goobaha dadku ay ku badan yihiin, kadibna waxa uu ku madadaaliyaa heeso uu u soo xushay, asigoo ay heesuhu ay barbar socdaan majaajilooyin oo dadkan kaga qoslinayo. intaan deganahay doolow caddo waan deganahay, zuru-uleed meel dhahay xaafadda ayaan deganahay. maalintiina waa iska soo baxaa baashaan ilaahan tabakala baashiin iska soo qaataa. caruur 5 baa ii joogtaa, 5 caruur ilaahay isi fan inaan ku galo. fanka markaa iga wareeray ayaa macnaha hungurub macnaha aan u bedeshtay. markii fanaanimadii inta aan qariibay aan la xarbinay wax adda kan iga bedel aan samaystay, kan adma samaystay mid kale original ayaa jirto aan laga bedela ama inta laga qaadaa macna jagal lagu yeelo markaan waay oo ilman ay xariiraan aan dhahay markii i garaac i dhaab aan baashaliyo xogo cid biilkaada waxaydaniyo aan dhaho inaan dhaho isiya. duruufaha ku xeeran ka sukow waa madadaaliye bulshada reer doolow aad ay u jecel yihiin, waxaana magaalada doolow looga yaqaanaa magacyo badan oo ay dadka ugu yeeraan xilliyada uu magaalada marayo. 3 magac ayaan leeyahay. mid waa xasan kanaaco, midna qaata quuta abuya, waa qaadana waa quudana buya caloosha la calool buuxsantii la dhahaa. marka waan qaatay waa quutay waan cunay oo ii taagantaa waa buuxsaday calooshii waa qaata quuta abuya. tida kalena waa cabdiqani tirbol. fanaankani baraha bulshada looga yaqaano fanaanka wareega ayaa ka digay in aan magaciisa loo adeegsan oo aan baraha bulshada loo isticmaalin, maadaama sida uu sheegay ay jiraan dad magaciisa isticmaala dabadeedna anfac ka raadiya baraha bulshada. waxa uuna dalbaday xasan kanaaco in fankiisa laga caawiyo si uu heer uga gaaro, islamarkaasna uu u suuro geliyo riyadiisa ah inuu noqdo fanaan weyn oo caan noqda. cabdiraxmaan maxamed muuse, SR TV, magaalada doolow caddo, gobolka liibaan.